nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay islaan reer banu israa'iila nebi muuse markii uu hijrooday ee uu ka baxay fircoon iyo meeshii uu maamulayey ee ay safarka ahaayeen ayay waddadii ka lumeen deetana way soo noqdaan waddadii bay heli kari waayeen lumistaa ku badatay dabeetana waxay idhaahdeen muuse u istaag raggii la socdaa waxay idhaahdeen ballan baa jira nebi yuusuf uu reer banu israa'iil ka qaaday oo aynan fulinin waxaynu la lulumaynaa waa ballankii yuusuf baan u malaynaynaa waa maxay buu yidhi waxay dhahay nebi yuusuf wuxuu yidhi reer banu israa'iilow haddaa meeshaa ka baxdaan maydkayga ha kaga tegina iga qaada xabaashayda qodoo iga qaada anigana markaa ballankaasuu naga qaaday bay idhahdeen nebi yuusuf markuu geeriyoonayey marka waxaynu la lumaynaa baan filaynaa ballankii yuusuf baynu khilaafnaye nebi yuusuf aan raadinno yaa garanaya baa la yidhi xabaashii nebi yuusuf waxaa la yidhi habar unbaa wax nooloo imika garanaya hal islaanaba hadhay habartaasaa hadhay habarta igu yeedha buu yidhi habartii baa loo yeedhay habartii baa waxaa la yidhi waxaan rabnaa inaadna tusto buu muuse leeyahay meesha xabaashii nebi yuusuf waxay tidhi xukumkayga ha laysiiyo oo waa maxay inaan jannada kugu raaco jannada kula gala bay tidhi nebi muusew waa habar janno doonaysaa haddii aniga intaa haddaan layga rabo aniguna waxaan rabaa maxay jannaan doonaya hankeedu halkaasuu taagan yihi dabeetana xadiidku wuxuu tilmaamayaa muuse arrintu ku yaro weynaatay ilaahay baa u waxyooday muuse waxaa la yidhi xukumkeeda sii islaantaa xukumkeeda sii waad leedahay baa la yidhi ballankaa laguu qaad inaad nebi muuse jannada u raacdid ee tilmaam waxay tidhi nawadiya waxay keentay meel mustanqaca meel biyo fadhiisiyo qurun ah ayay keentay waxay tidhi meesha tan biyaa ka dhura meeshii baa biyaa laga dhuray markii meeshii la engejiyey waxay tidhi halkaa qodo dabeetana meeshii baa la qoday waa laga soo saaray dabeetana safarkii bay bilaabeen taabuutii nebi yuusufna waa qaateen waddadii unbaa ilaahay toobiye uga dhigay markaasiyo reer banu israa'iil sidii bay ku galbadeen oo ilaahay ninkii fircoon ahaa iyo kooxdiisii uu ku dhaafiyey oo uu soo gaadhi waayey nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninkii uu yidhi sal ee wuxuu hungurigiisu noqday neef geela iyo 30 adhay ee waxoogaa adhayo uu maalo ayuu wuxuu leeyahay cajastum an takuunuu midla cajuusi bani israa'iil war ma reer banu israa'iil habartoodii miyaa ka liidataan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waa tii saxaabigii yaraayee rabiica ibnu kacb ilaslami xadiidkiisa inta badan maqasheen insha allah waxaan axaadiis sheegay wakhtigoo gaaban baan u soo koobay insha allah waa wada xasan iyo saxiix si ay culammadu soo naqliyaan rabiica ibnu kacb ilaslami saxaabi yar buu ahaa dhallinyaro ah laakiin wax mahaysatada ka mid ah ahlu sufaha sufadu waa masaajidkii nebiga xagga dambe berandu ku lahaa ay hadhsadaan saxaabada aan guri iyo waxba toona magaalada ku lahayn ee iska baahan ee halkoodaa seexdaan oo hadhsadaan ragga halkaa joogu ka mid ahaa nin dhallinyaraana wuu ahaa wuxuu jeclaystay inuu nebiga u adeego dabeetana albaabka nebigu seexan jiray intuu kabaha nebiga soo diyaariyo iyo weysadiis iyo waxa intuu soo diyaariyo ayuu albaabka nebiga seexan jiray calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay nebigu inuu gamay waxaan ku garan jiray markaan tasbiixda maqli waayo inta uu nebigu soo jeedo wardigunbaa bixi jiray buu leeyahy subxaanalladiisaan maqli jiray nebigu inuu gamay wuxuunba calaamadii ahaan jirtay buu yidhi marka aan maqli waayo tasbiixda ayaan garan jiray buu yidhi inuu nebigu gamay calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu tooso ee is idhaahdo bax oo kaadi iyo xaajo tag ayaan soo boodaayo waxaan la diyaarahay buu yidhi labadii kabood iyo weysadii labada kabood baan u dhigaa weysadana waa u qaadaayo waa raaca nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay wiilkan yar ee dadaalaya dabeetana waxaanu nebigu ciddii wax u samaysaa waa u abaalgudi jiray abaallaawe marnaba ma ahayn maalintii dambuu nebigu u yeedhay wiilkiiyo wuxuu ku yidhi sal waar bal waxi weydiiso maxaad doonaysaa buu ku yidhi maxaan kuu qabtaa waatano aniga waad i caawisaye adna waxaan kuu qabto sheego riwaayadka qaarkood waxay yidhahdeen wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow aan soo fakero soo tashado wuu tashado wuxuu isiri war nebi maxamed maxaad weydiisataa dabeetana wuxuu yidhi war adduunyo haddaad weydiisato soo barri dhiman maysa adduun muxuu tarayaa waa nin baahanoo masaajidka xaggiisa dambe hurdaa waxba haysanin kaan waxba haysanin ayaa haddana adduun agtiisa wax yar ka yahay
wuxuu leeyahy war haddaad waxoogaa xoole adduun nebi maxamed weydiisato adduun muxuu yahay soo berri laga tegi maayo wuu soo noqday wuxuu yidhi waan tashaday ilaahay rasuulkiisiiyo haye maxaad rabtaa wuxuu yidhi waxaan rabaa muraafaqataka fi ljanna jannada inaan saaxiib kugula noqdo adduunka waa anigana waan ku arkaayo waa kaag dhowahaye jannadana inaan kaag dhowaado yacni waa jannada dhulkeeda sare inaan ana tago riwaayaadka qaarkood nebigu wuxuu yidhi war yaa kugula soo teliyey tala nin yar ka weyn dee tani tala nin yar ka weyn yaa kula soo teliyey buu ku yidhi wuxuu yidhi cidna adduunkaan arko dee adduunku markaan arkay inaanu wax nafla ahayn ayaan sidhi buhi nebi maxamed ha ka hadhin ee aakhiro jannada xagguu tago in alla ku geeyo weydii aw hayra daalik buu nebigu haddana yidhi waar waxaan taa ahayn may weydiinaysaa jannada ilaahay baa hayee bal wax kaloo waxuun may weydiisanaysaa may buu yidhi anugu intaasaan rabaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuxuu ku yidhi haddaba acinnii calaa karati sujuud bal haddaba adna igula dadaal oo igu gargaar sujuud badni salaadda inaad badiso adna bal dadaal annaan ilaahay kuu baryo subxaana wa tacaala yacni hamigiisu halkaasuu joogaa idan asxaab alhami alcaali gaal iyo muslimkuu yahayba qofku hadduu hami sare leeyahy waxbuu xaqiijin karaa laakiin waxaa la xaqiijinaya waxay ku kala gedisan yihiin mataalibta iyo ahdaafta dadku ay leeyihin midna hadaf iyo maطlab dunawiya buu leeyahay midna kuwo kaluu leeyahay